war-saxaafadeed goordhow ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda Soomaaliya ayaa lagu sheegay in dalka uusan ka shaqayn karin wakiilka xogayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya Nicholas Haysom. warka dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ay ka soo saartay arrintan ayay ku sheegtay in lagu ogeysiiyey go'aanka dowladda federaalka ah ee Soomaaliya xogayaha guud ee qaramada midoobay isla markaana dowladda go'aankaas ay u gudbisay. war-saxaafadeedka ka soo baxay dowladda Soomaaliya gaar ahaan wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda Soomaaliya ayaa u qornaa sida tan: maanta oo ay taariikhdu ku beegan tahay 1 Janaayo 2019, wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee xukuumadda Soomaaliya oo xiginaysa heshiisyada caalamiga ah ee ku salaysan xiriirka cilaaqaadka diblomaasiyadda caalamiga ah, waxa ay dowladda Soomaaliya ay ku wargelisay xogayaha guud ee qaramada midoobay in aan waddanka laga rabin kana shaqayn karin wakiilka xogayaha guud ee qaramada midoobay ee Soomaaliya mudane Nicholas Haysom. go'aankani waxa uu salka ku hayaa kadib markii uu si cad u jebiyey habmaamuuskii iyo dhaqankii ku habboonaa xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya, si bareer ahna uu markaasi u farageliyey madax bannaanida dalka, ayaa lagu soo gebagabeeyey war-saxaafadeedka dowladda Soomaaliya gaar ahaan wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda Soomaaliya ay ku sheegtay in dalka uusan uga shaqayn karin lagana rabin wakiilka xogayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya.